walba oo guul gaaray waxa uu leeyahay qiso xanuun badan. Qiso walba oo xanuun badan waxa ay leedahay dhammaad wanaagsan. Aqbal xanuunka adiga oo u diyaar garoobaya guusha. Talo oo kaa caawinaysa in aad ka guul gaarto go'aan kasta oo aad qaadanayso. Ugu horeyn, wax waliba oo aan doonayno in aan ka guul gaarno waxa ay marayaan 3 marxaladood. kow in aad aaminto misna ku kalsoonaato waxa aad doonayso in aad qabato. Haddaba si aad u aaminto go'aamada aad qaadanayso waxaad u baahan tahay in aad siiso waqti aad ku ogaato waxa ay yihiin iyo waxa kugu kalifa in aad ka miro dhaliso. 2 in aad geliso dadaalkaaga ugu badan misna aad joogtayso, waayo waxa aad waqtigaaga ugu badan geliso ayaad natiijadoodu heshaa. 3 in aad ku qanacdo natiijo kasta oo kaaga soo baxda isku daygaaga koowaad, maxaa yeelay natiijada oo aad ku qanacdaa waxa ay quudisaa amaba sii adkaysaa go'aankaagii hore, waxa ayna suuro gelisaa in aad dadaalkaagii 2 jibaarto isku daygaaga labaad. Haddaba dhibaatada jirta waxa ay tahay qaarkeen waxa aan go'aan qaadanaa annaga oo aan aaminsanayn waxa aan doonayno in aanu samayno. Intaa waxaa sii dheer, kuma bixino dadaalkeena ugu badan, maba joogtayno. Ugu dambayntii, haddii natiijadaadu aysan noqon sidaan wax u doonayno, isla markii waxaan isku qancinaa fikradaha khaldan oo ah waan ogaa inaan ku guul gaarayn, waan ku degdegay, ma ahayn go'aan wanaagsan iyo wixii la mid ah. Kadib fikradahaasi khaldan waxa ay saameeyaan aqliga isbedel doonka ahaa. Intaa kadib waxaa dhacda marba markii xigta dadaalkii